waa habeen degan. Waa 7 Maarso sanadii 2014. Garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur waxaa buux dhaafiyay qoysas is-sagootinaya, farxad, dawlad-cadeen iyo rajo safar caadi ah oo ku socda Beijing, waa caasimadda dalka Shiinaha. balse habeenkaas wuxuu isku rogay mid ka mid ah sheekooyinka ugu cabsida iyo murugada badan taariikhda duulimaadida caalamka. Haddaba soo dhawaada saaxiibayaal, kuna soo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aynu uga hadli doono sheeko, murugo iyo cabsi isku dhafan wadata. qoysas wali sugaya jawaabo laga yaabay in aysan weligood helin, caruur ku koray iyagoo aan weligood arkin waalidkood, hooyooyin habeen kasta ku seexda oohin iyo rajo aan dhamaanin. Sheekadan ayaynu isdul istaagi doonaa min bilow ilaa iyo dhammaade. Fadlan inugu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran si aysan ku dhaafin barnaamijyada aan halkan ku soo baahin. Sanadii 2014 xilli habeennimo ah, diyaaradda Malaysia Airlines MH370 ayaa duushay saqdii dhexe iyadoo sidata 239 qof. Waxaa ku jira caruur yaryar, waalidiin, ganacsato iyo dalxiisayaal, kuwaas oo qoysaskoodu ku haminayeen in ay mar kale wada kulmi doonaan. Laakiin dhowr saacadood kadib, diyaaradda ayaa si lama filaan ah u go'day raadaarka iyo Tanadii iyo fariimihii la dirayay midna lama helin, oo wax jawaab ah soo ma celin. Gabiyahaana waxaa laga waayay raadaarka iyo systemkii u yaalay garoonka. Qoysaskii rakaabku waxa ay ka sugayeen war eheladoodii, telefoonno badan oo ay direen waxa ay muujinayeen in telefoonada qaar ay dhacayaan, qaarna waxa ay maqlayeen in aysan telefoonadoodu dhacin, laakiin cidna kama jawaabin. xafiisyada shirkadaha diyaaradda waxaa buuxiyay qoysas qaylinay oo yaya, qaarna dhulka ayayba isla dhacayeen. mugdiga ugu weynaa ayaana bilowday. wuxuu waqtiga suguraba waxaa la gaaray xilligii ay ku beenay diyaaraddu in ay ka degto Shiinaha, laakiin inay Shiinaha ka degto iska daayay. wax jawaab ah lagama hayo, mana jirto cid garanaysa halka ay ku sugan yihiin, xataa dawladda. halkaas markii ay wax marayaan, dawlado badan ayaa ku soo biiray raadinta diyaaradda, waxaana ka mid ah wadamadaas Australia, Mareykanka iyo Shiinaha. badweynta Hindiya ayaa laga baaray, diyaarado iyo maraakiib ayaana loo diray, laakiin raadkeedii weli lama helin. dunida oo dhan ayaa isweydiisay maxaa dhacay, ma afduub, ma shil, mase sirdoon qarsoon. laakiin wax jawaab ah lama helin. muddo sanada markii ay ka soo wareegtay, cid raq iyo ruux mid haydana aysan jirin, ayaa qeybaha Madagaskar waxaa laga helay qayb yar oo ka mid ah burbur diyaaradeed. baaritaan la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in uu ahaa burburkaas mid ka mid ah diyaaradii MH370. qoysaskii rakaabka rajadoodii gebi ahaanba waa ay dhammaatay. waxaa caddaatay in ay diyaaradii dhacday, laakiin weli lama ogaanin sababta. maxaa dhacay habeenkaas? duulihii miyaa qorsheeyey, mise qof kale ayaa gacanta ku dhigay, mise qalad farsamo ayaa sababay? ilaa iyo maanta sheekadaas waxa ay tahay sir qarsoon oo aan si buuxda u fahmin. waa sheeko murugo iyo cabsi isku dhafana. qoysas ayaa wali sugayay jawaabo laga yaabay in aysan weligood heli doonin, caruur ku koray iyagoo aan arkin weligood waalidkood, hooyooyin ayaa habeen kasta ku seexda oohin iyo rajo aan dhammaanayn. diyaaradda Malaysia Airlines MH370 waxay noqotay mid ka mid ah sheekooyinka ugu waaweyn ee qarniga. sheeko murugo iyo cabsi aan weligeed laga daalin in la weydiiyo maxaa dhacay habeenkaas. haddaba saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta halkaas ayaynu ku sameynaa. haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo dhammaadka, fadlan inugu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.